bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maalmadii maanta isugu yimi soo bax ballaaran oo ay ku taageerayaan dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya uguna mahad celinayaan madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo lamaha kala duwan ee xukuumadda aqoonsiga ay siiyeen dowlad goboleedka Khaatumo State. isu soo baxana haweenka iyo dhalinyaradu way isugu yimaadeen barxadda hore ee suuqa khudaarta magaalada Laascaanood ayaa waxa bulshadu dareenkooda ku aadan taageerada go'aamadii warqadda wada shaqaynta dowladda federaalku ku aqoonsatay maamulka Khaatumo State oo Soomaaliya ay dareenkooda ku muujiyeen waxaana halkaasi hadallo kooban oo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay qaar ka mid ah haweenkii iyagu soo abaabulay isu soo baxnay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu kala hoosaameynaa madaxweynaha federaalka Sheekh Shariif oo noo asiyay maamulka Khaatumo Soomaaliya State aad iyo aad u madaxweynahay waxaanu ku taageeraynaa waxaanu kala u sheegaynaa in Khaatumo ay socotay nin aynan u joojinayn aanu leenahay Soomaaliya soo raaxad rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waanu salaameynaa salaan labaadba waxaan salaameynaa Sheekh Shariif madaxweynaha Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirada professorada waxgaradka odayada dhammaan waxaanu salaameynaa dowladda Sheekh Shariif mahad labaad Sheekh Shariif aqoonsiga Sheekha iyo dawladdiisa aqoonsiga Khaatumo State oo Soomaaliya kamid noqda Soomaaliya ma kala go'ayso waa dad walaala waa dad wada dhashay waa dad isku dimuqraadiyadda waa dad isku nool waa dad walaala hooyada ku talinaysa qoriga ilmahaagu ha qaato anagu kuma talinayno waa diinay qoriga ay walaalaha aan dariskanahay ee galbeedka waxaan dad wada dhashay dad eelabaynu nahay dad isdhalay baynu nahay gabadhiyo wiilkeed baynu nahay gabadhiyo hooyadeed baynu nahay gabadhiyo aabaheed baynu nahay ma kala maarano ma kala tagno ma kala ambabaxno waxaan leenahay ciidamada aad dad u dhigteen naga qaada dabadeedna wada hadalka aan isugu nimaadno waxaan mahad u naqayaa madaxweynaha Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Cali Gaas ayaan mahad u naqayaa iyo dowladda Soomaaliya oo dhan waxa weeyaan Soomaaliya waa isku mid calankeeduna ma kala go'ayo waa calanka shanta xidigood leh ninka sayidi shantayda farood afarta waan goynayaa gacantaasay maxaad u qaban Soomaaliya waa shantaasina ma kala go'do shalay ayay ahayd kolkii ay soo baxday warqadda wada shaqaynta maamulka Khaatumo State of Somalia iyo dowladda federaalka iyadoo oo in badan dadka deegaankani ay sugayeen aqoonsi ay ka helaan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaanka iyo waliba mid ka mid ah saddexda madaxweyne ee uu leeyahay maamulka Khaatumo ay ku sugan yihiin waqtigani caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho una tageen in ay helaan aqoonsi isla markaasina ay ku guuleysteen dhanka kalena madaxweynaha koowaad ee maamulka Khaatumo State of Somalia mudane Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo haatan ku sugan xaruntii xukuumaddii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan haatan ah xarunta maamulka Khaatumo State of Somalia oo ku baaqay in dadka deegaankani ay muddo 3 cisho ah u dabaaldegaan wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Khaatumo State of Somalia oo isagu kamid ah maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya Maxamuud Salabaan Somalisat TV magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدحوينها مامور goboleedka Khaatumo State Axmed Cilmi Cismaan walaha wasiirada
guddoomiyihii gobol xaalka Khaatumo State Xasan Cali Yuusuf iyo xir saxaafadda haweenka oo guud koowaada dhalinyarada culimada ningarboodka iyo cuqaashada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahadle maanta isu keenay geedkii bardaha weynaa ee Khaatumo oo guddiga u ahaa qulubtii iyo qalbadii ilaahay dhulbaantay isugu soo jeediyey ilaahay isugu keenay mar labaad ayaa mahadda koowaad iskale waxaan mar labaad halkan uga soo jeedinayaa garaadkiina garaad Suleymaan garaad Maxamed oo khadka teleefonka nagula soo qayb galay iyo salaadiinta kale ee jooga ee golaha dhaqanka ee beesha dhulbaantay ee xamar jooga iyo inta kale hawlaha ku maqanba idinkana waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idin siiyo intaa haddii aan ka gudbo waxaan u malaynayaa maanta waxaynu isugu nimid waxa weeye waa xaflad taageeraha weyn oo aynu ku celebrate garaynayno maamulkii Khaatumo State of Somalia oo shalay bishu markay ahayd shantii bishii saddexaad 2012 lagaga dhawaaqay caasimadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho oo uu runtii ku dhawaaqay ilaahay ha karaameeyay madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaan halkan ka salaamayaa maanta mar labaad mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaare Cabdiwali Gaas golihiisa baarlamaanka golihiisa xukuumadda ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna Soomaali qulubteeda iyo qalbadeeda ay soo jeediyeen waxaan kaloo halkan mahad uga soo jeedinaynaa maanta shacabweynaha iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Mr. Cali waxaanu leenahay madaxweyne ilaahay khayr ha ku siiyo adiga iyo shacabkaagaba shacabweynaha reer Caabudwaaq Maakhristeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo in allaaliya intii raalli ka noqotay maamulka Khaatumo State waxaan idin leenahay ilaahay raalli ha idinka noqdo waxaan halkan kaga faa'iidaysanayaa oo aan halkan hambalyo uga dirayaa ugaaska beesha sare ee Mareexaan ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xilsi waxaanu leenahay ugaas ku soo dhawow golaha isimada Soomaaliyeed oo aad markii horena qayb ka ahayd haddeena aad qayb ka tahay haddaanu nahay maamulka Khaatumo State ugaaskaygii baa tahay xarunta daraawiisha ee Khaatumo State baanu kaa taageernay waanu ku garab taagannahay ugaaska jiran ilaahay kaa dhigo intaa haddii aan ka gudbo waxaan kelmad message u diraya salaadiintii ka hadashay magaalada Hargeysa ee isugu jirtay Isaaqa iyo Galabiirsaga iyo Mandhibaanka isugu jirtay halkan hooyaha Galabiirsaga Mandhibaan waxaan leeyahay ninkii jiray wuxuu anaga haraftoodub xagaan isku aragnay war xagaan inuu isku aragnay oo aad nooleedii waxaad tabanaysaan annagu dhulbahantaanu nahay idinkana waxayna kama tabanayno horena idinkamaanaan taban jirin idinkunba iska ordayeen ilmaadareyaalow waa mahadsantihiin ilaahayna khayr ha idin siiyo salaadiinta reeshii saxaaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dad islaamay baynu nahay dad kala maalmaya ma nihin wiil iyo abtigi baynu isu nahay isku deegaan baynu nahay waynu isnaqaanaa kala tegi mayno nabad annagaa u baahan idinkaa u baahan waanu idila qaadanaynaa laakiin intaad ilaahay ka baqdaan oo aad ilaahay ka yaabtaan dee nabadna gurigiisa ninna laguma macsuumo ninna laguma sooriyeeyo macquulna ma aha reerkaagii iyo gabadhaadii iyo carruurtaadii iyo gurigaad adigu lahayd intaan anigu imaado inaan qada kugu kariyo oo kugu macsuumo macquul ma aha annagaa nabadda idinla qaadanay laakiin deegaankayaga iyo dhulkayaga annaga iska leh
هدا نبدون يسوون ذرا قادنا نوربحها وأنا قاعدين نحن ذرا قراتنا إلما ذرا نوربحها كلامار ماينو إذا ما ذي النجاعية deegaan kiina ku noqda markaa meel allaaliya meesha doontaan wayna ku wada hadli karnaa laakiin idinkuna waxa weeye hargeysaad ka soo hadlaysaa ciidamadiina iyo raggiina raascaanood bay joogaan hadda ogaada cidda diiday dhibaatada waa annagaa diidnay annagaa reer nabadeeda annagaa colaad ogolayn annagaa darisnimada ogol annagaa walaaltinimada ogol islaadiinna waa tihiin diintana waa taqaanin guryo reerna ciidamada ku soo dirteen kala noqdaanu leenahay markaad burciya hargeysa tagtaan iyo caynaba iyo wixii ka shisheeya annagaa idila hadlayna soomaalinimaan iskula hadlaynaa islaamnimaan iskula hadlaynaa walaadiina ma jecelin annagu dan wada nashabeenu nahay salaadiinta waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin laakiin taliya oo dib u taliya oo deegaanka ka taliya oo waxaa weeye waxaa maanta magaalada xudun ka dhacay banaanbax ballaadhan oo lagu taageerayo aqoonsiga ay siisay dowladda ku-meel gaadhka ee Soomaaliya maamulka Khartoum State of Soomaaliya. Banaanbaxan ayaa waxaa ka hadlay dhammaan dadweynaha ku nool deegaanka xudun iyo degmooyinka hoos yimaada, waxayna halkaas ku soo bandhigeen ciyaar dhaqameedyo iyo heeso wadaniya. Kan ayaa shucuurtooda waxay ku muujinayeen deegaanada ay ka dhaceen oo aad u fara badan ayaa waxaa ka mid ahaa deegaanka Arboogay, Sarmaayo, Lafweyne, Holhol, Ulaal, Gorofley, Xabaalo Camaare, dhawan dhammaan waxay hoos yimaadaan degmada xudun oo ka tirsan gobolka Sool. Dadweynaha ayaa waxa ay farxadoodani ahayd mid aan la qiyaasi karin shucuurta ay u hayaan maamulka Khartoum State of Soomaaliya aqoonsiga rasmiga oo ka helay dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. Iyagoo halkaasi hambalyo uga diray golaha wasiirada madaxtooyada shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed, waxayna ugu baaqeen cid kasta in ay u diyaar garowdo sida ay uga mid noqon lahaayeen federaalka oo ay tahay ka mid ahaanshaha maamul goboleedada ka jiri doona waddanka Soomaaliya. gobollo degmooyin qaadi kara dad ahaan dhaqaale ahaan dhul ahaan inay dawlad hoose oo dawladda weyn ee Soomaaliyeed ka hoos shaqeysa ay samaystaan. sidaa la socotaan dawladihii federaalka ahaa oo la aqoonsaday waxa ugu horeysay Puntland oo aynu ka mid ahaan jiray. waxa ka mid ah Galmudug intaan aqoonsanahay oo Soomaalidu aqoonsan tahay. waxa ka mid ah maamulka Somaliland oo isagu diiday Soomaaliland laakiin ismaamul hoosaad leh kana mid ah federaalka Soomaalida. innaguna waxaynu noqonay dawladdii afraad. madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay sida aad u aqoonsatay maadaama aanu buuxinay. waxaanuna ka rajaynaynaa Soomaalida kale sida iyadoo kale buuxisana inaad iyagana u ogolaataan inay iyaguna federaalka ka mid noqdaan. maanta laga bilaabo waxa dhamaaday 20 sanadood oo magaceena dad kale ku maxaabsan jiray. intaasoo dhan waa salaamaya. waxaan uga mahad celinayaa Khartoum اعترافك اعترافين بان uga mahad celinaya bay ahaayeen. waxa la yiri inta faalada u dhaafmaya waxaan leeyahay ciyigii waa ka bariyay ninkii cunay baa ka liitabaalay. taay xalay igu baaqayeen saddexdii goor dagaalku buuhoodle ka dhacay mar walba waxa laga soo diray laga soo maamulay Hargeysa. markaasay ahayd inay joojiyaan dagaal. annagu dagaal mar walba waa nala ku soo qaadi ma rabno. Arboogay, Xabaalo Camaare, Gorofley, Qandhicile, Lafweyne, meesha la yidhaahdo Holhol iyo dhammaan meel alaala meesha dadweynaha degmada xudun ay ku noolaayeen anigoo ku hadlaya dadweynaha. waxaan u mahad celinayaa madaxa dowladda federaalka oo hormuudka ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha federaalka, golihiisa wasiirada, ra'iisul wasaaraha Cabdiweli, baarlamaanka, cid kasta oo ka taageertay Khartoum aqoonsigeeda waan ugu mahad celinaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka tisaal mariyo. digayaa nabadeed gogoshaasi waa midaan waxba ka jirin. dad ay laayeen oo ku soo duuleen oo dhulkiisii iyo xuduudihiisii haystaan ayay waxay leeyihiin nabad baanu u dhigaynaa. iyagu mid beenay dhigeen, annagaa mid runa oo Khartoum u dhigaynaa. inay ka soo qayb galaan
siiba beeraha ku jira xuduudda sool iyo sanaag iyo cayn beeraha ku jira ee maamulka hadda ku abtirsada waxaanu ugu baaqaynaa gogol khaatuma ah in Soomaaliya ay mid tahay ee gacanta mooyaane afartaba u taagay baan ahaa haddeertana waxaan leeyahay farxadayda aanan ku soo qaybgalayn aanan ku soo koobi karin waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan dawladda dhexe Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynaha wasiirada golihiisa oo dhan baan hambalyo u dirayaa waxaan kaloo hambalyo u dirayaa dhammaan walaalahayaga Soomaaliyeed ee dega gobolada dhexe Bay iyo Bakool baan hambalyo Kariim Nolol magaalada Xudun gobolka Sool